maxamed kadiye ayaa inoo haysa warbixino ku saabsan dhanka Soomaalida iyadoo inooga soo diraysa caasimadda waddanka Kenya ee Nairobi. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Omar oo aanu kula kulannay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa ka hadlaya arrimo dhowr ah oo ku saabsan xaaladda Soomaaliya. Omar ayaanu ka wareysanay waxqabadka dawladda muddadii yareed ee ay jirtay. ta u horeysa dawladani 4 bilood ugu badnaan 4 bilood iyo badbay jirtaa. haddaad filaysaan dal 19 sano burbursanaa in 4 bilood gudihii lagu dhiso nabad, lagu dhiso adeegii bulshada, lagu dhiso dhaqaalihii dalka, taasi mid suurto galaysa maaha sababtoo ah waa in lagu xisaabtamo xaqaa'iqa jira. laakiin dawladdu maxay qabatay baa taal. ta u horeysa dawladdu waxay qabatay in ay difaacdo dalka iyo magaalo madaxda oo ay ka difaacdo hujuum ballaaran oo lagu soo qaaday in dawladana lagu rido dalkana lagu qabsado. marka difaacaysa iyadoo 2 bilood ama 3 bilood jirtay waa wax aad u weyn, laakiin se aan loo arkaynin ama aanay warbaahintu aanay muujinayn inay taasi dhacday ee ay hadiyo gooraala ka hadlaan halkan aad daciif ka tahay iyo halkan aad daciif ka tahay. dagaal weyn baa dhacay, dawladdu way moostay in dagaalkaasi naajo. haddii aanay moosi lahayn oo dalka la qabsan lahaa halkan maanta maynaan joognayn, adduun weynaha dawladda ugu xoog weynna lamaynaan fadhiisaneen. taasi waa qodobka labaad, gobollada dhexe guulihii laga soo hooyay idinkuba waa ka warhaysa. ta saddexaad, dadweynaha Soomaaliyeed inay gaaraan mowqif ay helaan dawlad nabad halhaynteedu tahay oo ay aaminaan. wasiirka ayaa sidoo kale ka hadlaya socdaalo wadamo dhowr ah oo ku soo maray waxyaabihii uga qabsoomay. ta u muhiimsan ee dibadda arrimaha ka soo hirgalay waxa weeye 4 bilood ee hadda la soo dhaafay golayaasha ugu muhiimsan adduunka wadamada carabta, qaramada midoobay, golaha madaxweynayaasha Afrikaanka iyo Afrika iyo golaha isutaga Islaamka si kaamil ah oo barax lahayn oo dood lahayn ayay isu soo taageen inay dadka iyo dawladda Soomaaliyeed garab istaagaan. taasi waxaan hore u dhicin in 4 golo ee u muhiimsan adduunku kaamil ahaan isa soo taagaan hore uma dhicin. taasi ma aha wax dhayal ah, wax dhibaato yar ku yimidna maaha. wixii laga hirgeliyay waxay noqotay in dhaqaale, xag tababar, xag ciidan, xag farsamo iyo xag diblomaasiyadba la inoogu go'aamiyo in la inala garab taagaya. dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed ayaa ku xirxiran xabsiyada ku yaala wadamada dunida qaarkood. haddaba maxay kala socotaa dawladda Soomaaliya? waxaanu su'aasha hor dhignay Maxamed Cabdullaahi Omar, wadamo badan oo jaarkeena ama goboladan aynu degannahay, Tanzania kamida, dad badan baa cadan u haajiray oo jooga meelo badan. Suudaan dad badan baa sii mara, Liibiya iyada nafteeda way joogaan sida aad u sheegtay. intaasoo dhami way jirtaa. dadka baxay ee dhalinyarada u badan ee wadamada jooga laba shay labadaba, sida Tanzania oo kale inta qof ee xirnaa ee safaaradda Tanzania degani soo deysay boqolaal ka way dhaafeen ee iyadu ay ka hawlgashay in la soo daayo wiig walbana way soo daayaan. taasi waa qodob. talabaad, dawlad ahaan annagu imika waxaanu la kaashanaynaa 2 urur in arintaasi laga hawlgalo. isutaga Islaamka waanu kula heshiinay in hadda la diro baaritaan la soo ogaanayo dal walba cidda ku sugan waxa lagu haysto, dawladdu waxay ku haysato, sharciyada ay ku haysato, in deetana laga hawlgalo. taa isutaga Islaamka waanu ka heshiinay 2 bilood horteed, mashruucaasi wuu socdaa. talabaad, dawladda Liibiya oo kale waxaanu kala heshiinay in dadka wixii la celin karo ama la sii dayn karo in la sii daayo. kaamil ahaanna waxaanu ka codsanay in dadkaasi loo gurmado, iyaguna ay annaga nala xiriiriyaan habka ay uga hawlgalayaan in loo fududeeyo inay ku noqdaan dalkoodii. marka laga soo tago in wasiirkii ama howlaha guud, wasiirkii maaliyadda, wasiirro aan xafiis lahayn oo aan hawlgalayn, hadda wasaaradda arrimaha dibadda oo kala tahay, marka laga soo tago caalamka aad wareegaysid maxaa ka qabtaa gudaha dalka Soomaaliya? 2 shay weeye. qofka bani aadmigu
intuu qaban karo waynu isla ognaho bashar baato adiga iyo aniga iyo intayna la mid yihiba 8 saacadood waa jiifna inta kalena waa ama hawlan tahay ama arrimo kale aad ku mashquulsan tahay wasaaraddu way dhisan tahay 9 qof baa ka shaqeeya website-keedii internet-keedii fadhiyadeedii shirarkeedii waa socdaan waanay dadka joogaana si toos ah oo caadi ah bay u shaqeeyaan madaxtooyada prime ministerka safaaradaha wasaaradaha kale toos bay ula shaqeeyaan safaaradaha toos bay ula shaqeeyaan shirarka loo baxayo tababarada la bixinayo boorsooyinka la bixinayo intaas oo dhan hawlaheedii caadiga ahayd bay ku wadaa marka ma aha in wasiir keligii meel socdo dad baa jooga xilkii ka soo baxa ilaa haddana ku wada حمدي محمد كدية Universal TV